bismillaahi raxmaan raxiim dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waa salaamaynaa waa annagii magacaygu waa cabduul diiriye ama cabduqaadir diiriye hadbasaa u taqaanaan takhasuskuna yahay cardiovascular imaging ee University of Washington. Maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno topic muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. Iyaamahan aad moodo inuu aad u soo noqnoqday khatartiisuna soo badanayso. Maanta waxaan ka hadlaynaa stroke. Waxaan taaban doonaa insha Allah xoogaa waa maxay stroke, maxaa lagu garan karaa calaamadaha stroke-ga, dadka stroke-ga qabana sidee loola tacaali doonaa markaan garanno calaamadihiisana sidee ula tacaali karnaa, maxaan u qaban karnaa dadka. insha Allah maanta haddii ilaahay yiraahdo intaasaan taabanaynaa, topigaasaan ka hadlaynaa. Horta waa maxay stroke? Stroke marka ugu horeyso horta wuxuu dhacaa marka dhiig maskaxda u socday ama xididada maskaxda quudiya oo nutrientskii oxygen-ka siiya ay xirmaan ama ay dilaac uu ku yimaado, si kastaba ha ahaatee baa stroke dhacaa. oo markaa qaybtii maskaxda ka mid ahayd oo ay quudin jireen oo nafaqada iyo oxygen-ka ay siin jireen ay shaqadaas habsan ku timaado. Kadibna waxaa imaanaysa markaa qaybta maskaxda ka mida inay dhimato brain cells-ka loo yaqaan. Marka stroke muxuu u qaybsamaa horta? Stroke waa maqalnaa, laakiin qaybo kala duwan buu leeyahay. Muxuuse u qaybsamaa? Stroke wuxuu u qaybsamaa 3 nooc. waxaa jira qayb la yiraahdo ischemic stroke, waxaa jira qayb la yiraahdo hemorrhagic stroke iyo TIA. waana taaban doonaa saddexdu waxa ay ku kala duwan yihiin, dhibka ay u geystaan maskaxda bini'aadanka iyo waxa ay wadaagaan saddexduba. sida aad uga jeedaan sawirkan waxa weeye ischemic stroke waxa la yiraahdo. Ischemic means marka ay xirmaan oo kaleeto maxay ahayd xididada quudiya maskaxda. sida aad u jeedaan hadda kan waa xidid maskaxda ku yaala, wuxuuna oxygen iyo nutrient siinayay qayb ka mida maskaxda. sida aad u jeedaan sawirkan waxaa badi xira labo waxyaalo unbaa xiri kara xididka. in uu jiro wax la yiraahdo embolism ama emboli, taasoo micnaheedu yahay xinjir ka timid qaybo jirka ka mid ah. badina waxay ka soo askumaan sida wadnaha ama waxa loo yaqaano carotid arterieska, xididada ku yaala dhuunta ee maskaxda quudiya. xinjirahaasu markay ka yimaadaan meelahaas waxaa dhici karta si lama filaan ah in ay ku aadaan maskaxda. maskaxda markuu yimaadaanna waxaad u jeedaa xidida yaryaroo badan baa maskaxdu leedahay. xinjirtu hadday weyn tahay waxay block gelinaysaa xididadaas yaryarka ah ee microscopiga badankoodu yahay. kadibna waxaa dhacaysa marka intaa kadib qaybtii xididkaasu quudinayay inay markaa weydo nutrientskii oxygenkii, kadibna ay dhimato. hemorrhagic marka waa labadaas nooc weeye. thrombus baa dhici kara, clot asaguna sidoo kale xinjiro sidaan sheegnay inay ku samaysmaan xididada maskaxda laftigeeda ee aan meel kale ka imaanin inay xiraan. labaduba way dhici kartaa. xinjirtu inay socdaal maskaxda ku tagto oo ay ama wadnaha ka timaado ama carotid artery-ga xididada dhuunta ka timaado, iyo in xididada maskaxda laftigoodu ay clot sameeyaan. waxaana dhici karto u badan dadka loo aayo inay qabaan waxa la yiraahdo lipidka ama hyperlipidemia oo kaleeto, baruurtu ku badan tahay jirkooda. atherosclerosiska waxa loo yaqaan, dadka xididadoodu adkaadaan, elasticity ama shaqadii ay samayn jireen ay yareeyaan. dadkaasaa halis u ah thrombuska formation clotskaas maskaxda gudaheeda. insha Allah waxaan taabanaynaa oo kaleeto midda kale oo la yiraahdo hemorrhagic. hemorrhagic waxaa afka qalaad lagu yiraahdaa dilaac markuu ku yimaado xidid ama past oo kale. taasna waxaa badi loo aaneeyaa dadka qaba oo kaleeto
da'du waa ka mid sida aan la wada soconno markaan weligeen 20 jir ma ahaanayno qofku markuu weynaado da' timaado waxaa imaanaya dabac baa jirka ku imaanaya xididada ku imaanaya xubnaha jirka bini'aadanka oo dhan ku imaanaya sida aad u jeedaan marka xididkan maskaxda quudin jiray wuu dabcay wuu bararay wuu fiday uma gegsan kara marka systemic pressureka waxa loo yaqaana ama blood pressureka xawaaraha uu ku socdo ee jambiga xididada garaacaya aakhirka wuxuu samaynayaa past waxa la yidhaahdaa ama inuu dilaaco taasuna maskaxda khatar bay ku tahay laba siyaabood awgood kow meeshii horta uu quudin jiray oo dee dhiiggii uu waday oxygen iyo nutrients baa ku jiray meeshii uu u socday meeshaas waxa weeye dee waa ma helayso nutrients iyo oxygen marka halkaa howlgab baa ka imaanaya sida aad u jeedaan halkan maskaxda meesha hadda guduuda ah xidid baa dilaacay qaybtii uu quudin jiray oo dhan maskaxduna waa dhimanaysaa waxaa kaloo jirta maskaxda bilaadanka siduu ilaahay u sameeyey dhiigga xididada ku socda oo quudiya ma ahane dhiig bannaanka beeldara ah oo jooga maskaxdu iyo jirku midna ma ogola haddii marka xidid uu dilaaco oo uu maskaxda gudaheeda dhiig ku sii daayo waxaa imaanaysa in barar uu yimaado maskaxdu bararto pressure uu yimaado jirku difaac resisting mechanism waxa la yidhaahdo inuu activate gareeyo oo uu diido micnaha dhiiggaas beeldaraysan oo bannaanka jooga marka taasna waa midda labaad oo hemorrhagiga loo yaqaan waa labada ugu badan badi inta aan aragno ama hemorrhagic stroke inuu dhaco xidid maskaxda ah inuu dilaaco oo awal jilcay oo bararsanaa ama inuu xirmo oo clot ama emply waxa la yidhaahdo clots ay galaan waxaa jirta midda saddexaad oo ugu yar waxa loo yaqaan stroke waa waxa la yidhaahdo TIA ama mini stroke TIA the mini stroke waxa loo yidhaahdaa waana midda ugu badan oo ay dadku sahladaan weeye qof baad waxaad maqlaysaa wuxuu ku leeyahay wani xoogaa maantay saan u joogay baan il wax ka arki waayey daqiiqada gudahood xoogaa mar balanska iga lumay laakiin haddana waan fiicnaaday waxyaalahaas oo kaleeto waxaa laga yaabaa temporary blood clot si ma aragtay lama filaan ah in hakad ku yimid qaybo ka mida maskaxda xididadii quudinayeyna inay xirmeen waa sababta loogu bixiyey mini stroke waxaa laga yaabaa inay daqiiqada gudahood qofka uu ku jiro nidaamkaas saacada inay qaadato 24 saac inay qaadato marka iyadu waa midda ugu yar oo ay dadku dhaliilsadaan weeye oo ay u arkaan micnaha inaysan dhibaato lahayn laakiin waxaa loo arkaa inay gogol xaar u tahay stroke waxaan dadka kula talinaynaa haddii aad isku aragtaan mini stroga ama waa ka hadli doonaa symptomskiis iyo sida lagu garanayo laakiin ha dhaliilsanina ha yaraysanina waxaad u baahan tahay immediate checkup in la jagareeyo in lagaa qaado ma aragtay imajinka maskaxda in lagu baaro in qofkaas la fiiriyo inuu safe yahay iyo nidaamkiisu sida uu yahay marka waxyaalaha aan hore uga soo hadalnay waxa weeye maxaa lagu garan karaa mini stroga dadku badi ku dhaca oo ay yaraystaan waxaa lagu garan karaa oo kaleeto numbness ama weakness of one side ah ama qayb ah confusion yar qofku xoogaa yar in jahwareer galo oo uu waxyaalo sixi waayo basiid ah oo awal uu aqoon jiray dizziness oo kaleeto ama waxa la yidhaahdo loss of balance xoogaa inuu dizzy dareemo ama uu israaca jirkiisa iyo habsocodku ka lumo qofka waxaa laga yaabaa hadalkiisu inuusan saxnayn hadduu xulufadiisoo kale la joogo inay yidhaahdaan war hebel maxaa maanta si ka ah hadalkiisu saan ma aha xoogaa waa isdhaafdhaafsan yahay problem with visionka saan ka aragnay oo kale hal il ama labadaba inuu korontadu ka tagto xoogaa mugdi iyo aragtidu humug galo oo aad si fiican wax u sixi weydid madax xanuun asaguna ma aragtay saa'id oo kaleeto oo aan horey aan qofku u qabi jirin in lagu arko kulligood hemorrhagiga oo aan sheegnay midka xididku dilaaco oo maskaxda gudaheeda dhiigga ku beeldareeya ah ischemic stroga midka xinjiruhu xiraan xididada iyo TIA-ga miiniga ah stroga yar oo dadku sahladaan kulli waxay wadaagaan same symptoms isku symptoms bay leeyihiin waa sababta aan u leenahay marka ama waha yaraado waqtiga uu symptomskan ku hayay ama ha weynaado
waxaa laga maarmaan ah inaad meesha kuugu dhow oo aad tayo caafimaad ku tuhmayso in aad tagto ama dadka kula jooga inay ku geeyaan. waxaana lagu garan karaa tilmaamahan haddaayan aan ka hadlay haddana aan farta guduudan ku xusnay si dadku ay macnaha u bidhaansadaan oo u bartaan in qofku weak uu noqdo, qof aan weak ahaan jirin oo kale inuu dareemo weak ama numbness inuu jiro, gacmahoo kale ka mid ah, lug ka mid ah, wejiga qayb ka mid ah inuu yidhaahdo dareen xoogaa wax kama dareemayo, laastig iyo waxaad moodaa inay tahay strength waxa loo yaqaan qofka miisaankiisa iyo jirkiisa iyo quwaddiisu nusqaan inuu galo. ilaan maskaxdii haddii cilladu ka jirto jirku ma controlmi karo. coordination or balance israaca iyo habka jirku qofku u wada socdiyo tallaabo qaadka inuu seego oo qofku xoogaha tallaabada gafo, ama hadduu yidhaahdo istaag oo tallaabo qaad inuu dhinac khaldan u qaado ama uu gafo. waa waxyaalaha uu caanka ku yahay. sensationka waxaa la yidhaahdaa qofku hadduu meel taabto inuu dareemi waayo, ama jirkiisa qayb ka mid a hadduu taabto isfiiriyo inuu dareemi waayo. speechka saan hore u sheegnay, qofka oo hadalkiisu xoogaa uusan dheelitirnayn oo saxnayn, dadka la jooga markaasna ama meeshii la geeyo caafimaad ahaan ugu sokaysa la garan karo in uusan speechka qofku dhammayn ama khaldan yahay, isdhaadhaafsan yahay. aragtida oo ama il ka mid ah ama labada indhoodba hakad aragti ku yimaado ama mugdi galo. waxaa sidoo kale dhacda mararka qaarkood iswaalo liqitaanka cuntadoo kale inuu hakad galo. sababtu waxa weeye maadaama qayb maskaxda ka mid ah shaqagab ku yimid, waxaa dhici karta qaybta jirka ka mid oo ay kontroolaysay sida throatkoo kaleeto ama dhuunta baniaadamka qofku ma sixi karo. speechkii hadalkiibaa hakad ku imaanaya, isku dhexyaacaya, wax ma cuni karo. waxaa dhici kara madax xanuun uu dhinac ah ama aad semberi u badan qayb madaxa ka mid ah, ama madaxoo dhan saameeya oo qofku uusan lahaan jirin inuu jiro. suuxitaan ama veint brief ah oo aan fogayn laakiin hakad geliyo qofka maskaxdiisa kadibna uu soo noqdo. dizzineskoo kaleeto waa jirayaa. haddii calaamadahan lagu arko qof waxaan shaki ku jirin in stroke uu hayo, marka waxaan ku talinaynaa insha allah muhiimadda aan ka lahayn barnaamijkan waxaa waaye in haddaad qof ku aragtid calaamadahan sida weaknesska aan sharaxnay, numbnesska, strengthga, visionka aragtida oo lunta, qofka oo yidhaahdo cunid inuu xalliqo ay adkaato, madax xanuun saa'id ah, dizziness iyo wixii la mid ah, in macnaha qofkaas la geeyo meelaha lagu tuhmayo tayada caafimaad oo ugu dhow. marka waxaa jira stroke recognition waxa la yidhaahdo. sign and symptomsku waa gaar, laakiin maxaa muuqaal ahaan stroke uma baahna dhakhtar. qof kasta oo yaqaan acronym-ka waxa loo yaqaan ama xarfahan aanu sharaxi doono baa test garayn kara oo tijaabin kara qofkan in stroke hayo iyo in kale. haddii marka jawaabuhu ay sax noqdaan, qofkan waxaa muhiima in la gaarsiiyo meel caafimaad muddo ku siman 3 saac ugu horeysa inta la ogaaday xanuunka inuu hayo. 3 saac gudahood haddii la geeyo, waxaa la isku raacay in qofka wax laga qaban karo, la soo celin karana jiritaankiisa. haddii laakiin xanuunku dhaafo 3 saac iyo 4 saac wixii ka badan, waa soo noqon karaa. ilaahay baa wax kasta maamula, laakiin damageku waa badanaya. waxaa ka mid a xarfaha lagu yaqaano recognitionka la yidhaahdo fast. waxay u taagan tahay fast. f waxay u taagan tahay the face. eedu waxay u taagan tahay the arms. est waxay u taagan tahay speechka. tiduna waxay u taagan tahay time. barseembiyo qof baan u nimid aan uga shakinay stroke inuu qabo. waxaan fiirinaynaa wejigiisa. stroke qofku uu ku dhufto waxaa lagu yaqaanaa wejiga in qayb hoos u dhacdo oo uusan isu dheelitirnayn qofka wejigiisu oo dhinac hooseeyo, waxa loo yaqaan drooling oo hoos xoogaa dhinac u dhaco. armska waxaad odhanaysaa marka qofka inta hor istaagtid labadaada gacmood itus oo sin. qofka hadduu stroke hayo waxa weeye gacmihiisu ma dheelitirnaan karaan, mid baa hoos u dhacaysa, semberi ma kontrooli karo, mid baa hoos u dhacaysa. waxaad kaloo qofka ku odhanaysaa hadal gaaban sida gurigan joogaa ama gurigan ka imid
dheh baad leedahay hadduu sixi waayo hadalkaa oo si saxa u oran waayo gurigan ka imid shaki kuma jiro in uu stroke jiro waxa kaliya noo haray markaa waa time waqtigu waa adag yahay markaa haddaad joogto wadamada horumaray waa inaad 911 ama numberka emergency-ga medical team la isticmaalo garaac si qofka loo gaarsiiyo isbitaal tayo caafimaad lagu tuhmayo haddaad joogto dunida saddexaad gee qofka meesha aad ku tuhmayso tayo caafimaad oo wanaagsan si loola tacaalo waxaad xasuusataa marka qofka aad aragteen marka la xaqiijiyay inuu stroke hayo oo uu ku dhacay iyo intaan isbitaalka ka geynayno 3 saac gudahood ugu badnaan 4 saac baa qofkaas lagu safe garayn karaa waa waqtiga the golden time-ka loo yaqaan muddadaas haddii isbitaalka ugu dhow oo waxqabad le qofka la geeyo ilaahay amarkii qofka waxaan u rajaynaynaa insha Allah inuu badbaado oo ma aragtay recovery ha maro hadhow laakiin in uu caafimaad helo waa waqtiga ugu fiican wey wixii medical iyo therapeutic management iyo waxaan u daynaynaa iyada dhakhaatiirta sida PCB-ga iyo neurologist-ga iyo meesha qofka la geeyay oo medical center-ka dhakhaatiirta joogtaan u daynaynaa taa daawooyin badan baa la isticmaalaa sida TBA-gu ka mid tahay laakiin baabkaas hadda ma galayno annagu dadka waxaan u tilmaamaynaa oo baraynaa dhaqanka uu leeyahay stroke inay ogaadaan inay macnaha berri ka maalin haddii aad aragtid qof uu hayo in aad qofkaas u gurman kartid oo aad gaarsiin kartid meesha caafimaad oo ugu dhow haddaba weligaa ha iloobin fast face qofka wajigiisa inaad fiirisid hadduu dhinac uusan u badan yahay ama dhinac hooseeyo gacmaha qofka inaad tidhaahdid soo taag haddii qofka stroke hayo gacmihiisu ma sinaan karaan mid baa dheeliyaysa speech yar hadal yar ku dheh sida gurigan ka imid oo kale ama gurigan u socdaa ma sixi karo qofku hadalka intaa haddii laga helo 3 ama mid 2 ka mida laga helo waqtigu waa nagu yar yahay qofka waa in la geeyaa meel degdeg marka insha Allah waa Cabdul Diiriye oo in salaamaya iyo Somali Health Board wixii macluumaad waad nagala soo xiriiri kartaan oo tale iyo tusaale markasta wixii treatment ama la tacaal waxaan u daynaynaa dhakhaatiirteena khaaska hadday tahay neurologist hadday tahay PCB primary care waxa loo yaqaan annaga waxaad noogu imaanaysaan wixii tale iyo tusaale iyo inaan inika macnaha jaahil bixino cudurradan soo kordhaya iyo sida ay wax u dhimaateeyaan waad mahadsantihiin fi amaanillah meel kastoo aad joogtaan